reer Garis waa dadka kaliya ee mu'minka qofka uu yahay inta ay xamaasadda siyaasadda ku jirin ee siyaasadda laga soo baxo. qofka uu wadani dhab yahay marka xamaasadda siyaasadda laga soo baxo. qofka uu yahay yacni qof dadka la xisaabtamo marka uu qofkiisi xilka haynin. uu yahay qof yacni wax garad ah oo miirkiisa uu joogaa kaliya markuu asaga wixii uu rabo uu waayo. waryaada waxaa laga yaabaa inaad qof ku eedeyso qabyaalad. waxaa laga yaabaa inaad qof ku eedeyso wax isdaba marsan iyo wax halaabay. mar walbana waan ku celceliyaa hadduu jiro qof isku dayay bey'adda aan joogo inkastoo bey'ad qabyaaladeed ay tahay oo Soomaali nin dhex joogo uu qabyaalad kaba marnaan karinba, haddana waxaan isku dayay inaan dadkan fahansiiyo inay qabyaaladda xun tahay. dadka ayaga ah hadda dhammaan waxaan arkayay kuwa ani hadda igu beel ah oo waxay dhigayaan markaa aragto hala xisaabtamo ninka halala xisaabtamo maxaad u diidi sheekada waxaa saa u leeda mataqaanaa markaad shalay dooranaysay uma dooranin horumar ha gaaro wadankan cadaalad waxa loo qabto ilaahay ka cabsi iyo in wax sax loo qabto wax uma dooranin. anaa ku dhaarantaas waxaad wax u dooratay amaad dhaar horaa dhowr milyan heshaye ama hebel uu shaqo helaye amaad guri ka dhisataa ama meel ka gaartaa ama wax aad ka qabsataa xisaabtaada dhankaasay jirtay. wadanka iyo horumarka iyo wada go'day iyo halaaw iyo caafimaad iyo shaqadaada maynan ahayn. ana hadda kugu dhaaranayaa si dhab ah kugu dhaaran. waxaa la yaab leh oo adduunka aan la yaabe hadduu MB yahay hadduu governor yahay iyo hadduu nin xil haya uu yahay wallaahi billaahi tallaahi uma tagaan dad ilaa hadday u tagaan dantooda gaarkay kala hadlaan. ma jiro meel reer Garis intay ku mideysan yihiin hal arrin oo guud keli lagaga hadlo oo la dhaho niyahow annaga qandaraas ma rabno, niyahow annaga waxaan gooni ma rabno. ninka ugaaska ah ama odayga cidda ah ama chairmanka ah ama chiefka ah ama gudoomiye xaafadeedka ah ee beesha hordhiga u ah wuxuu shaqada u weydiiyaa hadduu nin mas'uul la kulmo wiilkiis midku adeerka u yahay hadduu lacag laga bixin kaasuu dhihi ka bixi. danta guud waxa meesha ka saaray dadka xilka haya ma aha waa dadka shacabka ah. nin walba wuxuu doortay waan ognahay waxaa doorata dantaada dan guud ma dooranin shalay waxba qiira jabaanka iyo waxna keenina. hadda waxaa la yiri governorka halala xisaabtamo waa sax anaga ma diidin halala xisaabtamo ma diidanin halala xisaabtamo laakiin yaa la xisaabtamay horta qofka in la rabo inuu la xisaabtamo yaa waay sanataha yaa la rabaa inuu la xisaabtamo oo xafiiska sanadka ayaa arintan shaqo ku leh. waxaan arkaynay gabar sanad kale oo madow isku soo sawirtay oo xoogaa arinta xamaasadeynayso. waxay u xamaasadeynaysaa ma taqaanin waxay u xamaasadeynaysaa interestada ayada ay lahayd bay weysay. hadday dhab tahay shalay meesha sanadka markay joogto daraad waxay ku celcelisay hooyaa la kufsaday oo maxaa la dhihi jiray lagu faraxumeeyey isbitaalka. annaga oona dulmeynin in xaqeeda maamada ay hesho mana jiro nin mas-uul ah oo xil asaga uu hayo meel uu shaqaale asaga hoos imaadaan ama facility ama meel ay ahaataba inay wax ka dhacaan xunin rabo ma laha. nin walbo xilka inuu ka dego asagoo sharaf leh oo fiican oo wax qabtay buu jecel yahay ama ha ka halaabaan ama ha u hagaagaan. hadday wixii dhaceen suu ku dhace lama dhahee way dhaceene sidii wadadii la rabay in loola xisaabtamo ma aha sidaad sidii hadalka u dhigahaysa ma aha. hadday munaafaqad jirin oo been jirin oo wax la kashkaashayo uu jirin gabdhihii dugsiga lagu saxariiriyay wax u hadla ma aragteen oo gabadhii nominated aan ka ahayn ma u aragteen ini waxa sacabtumayo hididiilahan wado waa kuwa nadiif shalay markay dooranayeen qabyaalad ku doorteen oo uu ka diiday qabyaaladii inuu wax ku qaybiyo. ana hadda ku sheegi waa beeshiisa waa cawlyahan gafuurkay wada taagahayaan hunguri bay waayeen waxay leeyihiin dadka wax muu u qabto waa been micnaha ma ani xasuusatida wax isiisid waay ma qoyskayga chief officer siisid ma anaga chief officer nasiisid ballan baad naga qaaday xisaab baa wada jirta meeshan. ninkan marka dadkii Kona tribe ka ahaa
magaaladan joogay ayuu wuxuu yiri ana governorkii oo ogaadeen anaaba governorkii ahba ogaadeen baa tiininig saddexda qoys ee ugu tun weyneedna wax buu siiyay waliba wuxuu siiyay jagooyin fiican kuwii marka magaaladan deganaa qabaa'ilada kale u dhasheen ayuu chief officer u qeybiyay sheekada marka meesha ay ka burahayso aad moodaysi ninkan in loola xisaabtamahay inuu dadweynaha wax u qaba ayta ma aho ana runtii idin sheegi interest cali bulow muxuu lahaa darad qoyska ani aan ka dhashay ima haysani qoyska aniga qoyska cuulyaan ima haysanin qoyska ani aan ka dhashay haysto aha muxuu saa u dhahay maxaa yeelay dana gaar ah ama sana arrin interest baa la isku gafa sooma ha waa kii mahmaahay ay samaysmeenbo meesha maxaa la dhihi jiray ay socdeen intaasoo balki marka meeshan xaqiiqa laga hadlay dadkan waxaa waaye waa qandaraasley dadkan waxaa waaye waa dad hoteello u fadhiyo inay wax cunaan waa inay wax handadaan hubka ay isticmaalaanna waa shacabka marka ani ma rabin shacabka marka in ilinta lagu tirtirto maxaa yeelay shacabkan shacab dhintay waayaba waa shacab markay wax dooranayaan qabyaalad wax ku doortaan markii la rabana la istaaro markii la rabana la dejiyo hadday xisaabtan jirto haba yaraato waa run ninkan hadduu xoolo dhumiyey hadduu wax khalday hadday wax jiraan halala xisaabtamo laakiin dadka la xisaabtamahay oo lama xisaabtamahayaan maxaad xoolahan sidaa iyo waxaan ugu samayn waysa ma aha anaa idin dhaarantaas interest hoosaa jirta meelo la fariistaa jirta codsiyo la dhiibtaa jirta waxyaabo ballamo la galaa jiraan wixii baa sidii noqon waaye maxaa yeelay hadday xisaabtan jirto bal aan ka bilowno meesha u hooseyso aan ka bilowno aan la xisaabtanno xildhibaanada aan la xisaabtanno woman reebta aan la xisaabtanno qof walbo hantida uu gacanta ku haya aan kula xisaabtanno micnaha yaa lagu dhihin un adi meeshaas weyn maxaa yeelay adi shalay maa dooran dantaada dooratay maa dooranin horumar maa dooranin adi dantaada adi dooratay marka wixii hadduu ninkan wada gaari waayo haddana wuu waayey dad isla socdo 100 qof hataa qoyska ha noqdaan hadday rabaan oo hal dan ma la arkayo 100 qof haddii 100 qof iska daayay 20 qof haddii gavanaha u tagaan oo wax weydiistaan nin baa interest wataa nin baa dadkaas soo qanciyey oo kusoo qanciyey in asaga loo tago oo baalkale marka waxaan aan aqliga anaga intuu joogo aan ka dhabeeno waa markay siyaasadda taagan tahay qabyaalad yaana wax ku dooranin aan interest yaana wax ku dooranin hunguri yaana wax ku dooranin aan qabiil iyo qurun iyo waxaan aad sheegaysiin hadda qurqurahaysiin yaana wax ku dooranin markii qabiil la sheegay waad xanaaqday magac qabiil baa la sheegay ama qof adiga aad moodayso inuu kaa farxinayo maadaama accountada shaqo ka waysay maadaama qandaraas waysay maadaama chief officer aa waysay maadaama warqadahaadii aad wax ku waysay sidaa rabta aa waysay ayaad xanaaqsan tahay sidaa ma aha marka hawsha sidaa ma aha xanaaq inaa meesha ka xanaaqda lama rabo maxaa yeelay waxbaa qalloocan si qalloocan baad wax ku doonaysay sidii qalloocnood bay wax kuugu hergeli walaa yihiin kuumana hergelayaan anaa hadda kuu sheegahaya marka horebo adi si qalloocan baad waxyaabaha aniyad u sheegaysa ninka kama bixi karabo maxaa yeelay nin walba wuxuu rabaa qandaraas 20 milyan maba taalla meesha nin walba wuxuu rabaa chief officer maba yaalla meesha nin walba wuxuu rabaa wasiir meesha ma yaallo nin walba shaqo 100,000 buu rabaa meesha ma taallo 70,000 baa soo dooratay 70,000 oo qof shaqo lama wada qori karo marka sheekada dhabta aan ka hadalna anaga meeshan hunguri baa yaala interest baa yaala haddii ay dhab tahay oo arrinta ay qabyaalad laga saarayo tiktoka iyo xamaasadda iyo qiira jabaanka 180 milyan 160 milyan oo angaaf bay hadda gabadha woman reebta haysaa ayada waxaad moodaa in shilin ay gacanta ku haynin hal shilin ay gacanta ku haynin baa moodaa hal degme oo dhadhaab ka mid ah hal buug may geenin hal degme oo faafi ka mid ah buug may geenin hal degme oo ka mid maxaa la jiray southern ijara ama masalani may geenin hal degme wax may geenin adi horta iska bilow biyaha meeshay ku joogaan adi horta iska fiiri marka kadib aan ka hadalno ninkan wax buu halay dadka xisaabinayana annaga dadka ninka la xisaabtamayna anaga xisaabin horta intaan nadiif la xisaabtan anaga san wax ku dooranaa inteen aadna qaqligaana intuu jira inteen aadna